بسم الله الرحمن الرحيم. محاد كلا سعوتا قصة نكي ريب بني إسرائيل هاي عالمك ها إلهي سبحانه وتعالى أوبري مقعيس خاص كه أو لو يقان اسم الله الأعظم أو قفك إلهي مقعس برا وحوهلا يا إن دعاك سقفك ودعي لو أجيب مرك وحوها مستجاب الدعاء دعاء اسم الله الأكبر. عالمك ريب بني إسرائيل وكسو هذا حلق النبي موسى عليه السلام. محاد كلا سعوتا قصديسا iyo سورة الأعراف oo lagu sheekay laba aayad nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa fari watlu alayhim naba alladhi aataynahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin. qod al-akhir umadada ninkii aayadihi iyo xikmadii diinta aan siinay kadibna ka siibtay xikmadii diintii la siiyay kana doortay wax raqiis ah oo Allah subhanahu wa ta'ala in lagu caasiyo. هذا وحن قد قرينا قصدي سنكاس وحال أورنجري بلعام بن باعور أما بلعام بن باعور أما بلعام بن باعور وهو عالم بني إسرائيل وآد ويقاني كتاب كتبتي حلقاسي نوم سكوري علمي لأن آد دعاء سلوى قبلها عبادة بدن وها بيت المقدس أكتيسا يودقنا مركو نوم الصبح عليه السلام يا أصحابتيسا waxay ku soo qaadeen weerar si lagu xoreeyo Bayt al-Maqdis mushrikiintii xilligaas haystay Kancaaniyiinta ahaa. marka Kancaaniyiinta waxay u tageen Balcam ibn Ba'ur waxay dhahniyahu waxaad sameeysaa Muuse iyo kooxdiisa habaar. markaas wuxuu dhahay waa adoon Ilaahay soo dirsaday ma habaari kari. marka way alahu fi hada al-amr arintii ku celceliyo waxay dhahay waxaan ka rabnaa laazim nin qiimo iyo sharaf agteena kula tahay marka Muuse habaar. markuu nabi Muuse habaaray waxa ka soo dhacay carabkii oo dhulkii yaani ku xaqmay watlu alayhim naba alladhi aataynahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin. ninkaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu u sii waday in jagadii nabi Muuse alayhi salaam iyo mas'uuliyadda nabinimada inuu ku caawiyo oo noqdo gudoomiyihii magaalada Bayt al-Maqdis oo meel fiican manzil fiican loo waday. hase ahaatee markuu dulmiga iyo dhaalimiinta kaalmeeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka soo riday carabkii. haddaba ninkaasi ninka lamid waxa qisada laga qaadanaya qof kasto oo Allah subhanahu wa ta'ala diintiisa iyo culimadii ahlu ducaada dhibaato u geystaa wax kasta manzilo kasta uu joogay boos kasta joogay inuu la kulmayo cuquubad degdeg ah inta aakhir la gaarin.